weli waxaad daawanaysaan wararka Som News TV oo idinkaga imaanaya magaalada caasimadda ee Muqdisho xarunta telefishinka uu ku leeyahay. wararka kale aan idin hayna waxaa qayb ka ah maamulka iyo macallimiinta dugsiga hoose dhexe sare ee Umulqura ee deegaanka Tareedisho ee duleedka magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa munaasabad ay kaga mahadcelinayeen baaritaan caafimaad oo lacag la'aan ah oo loo sameeyay ardada qaybta ka ah iskuulkaasi isla markaana ay u sameeyeen dhaqaatiir iyo howlwadeen caafimaad oo ka socday Kalkaal Foundation waxa lagu qabtay xarunta iskuulkaasi uu ku leeyahay deegaankaasi. caafimaad duwaatiir waa tabanada adduun mara adduun iskaalo la talaalo cudurrada dabtiisa loo maro duwaatiir aan shaqayne dadan waxay qayb ka yihiin boqolaal arday oo Kalkaal Foundation dhaqaatiir ka socotay ay u sameeyeen baaritaan caafimaad oo lacag la'aan ah taa oo ku aadanay talaalka cudurka hepatitis B oo laga talaalayay boqolaal arday oo wax ka barata dugsiga Umulqura iyo iskuulaad kale oo ku yaala duleedka Muqdisho. munaasabada hab maamuuskeeda uu sareeyo oo ay ka soo qayb galeen waalidiin marti sharaf iyo mas'uuliyiin kale oo ka kala socotay bahda caafimaadka maamulka Kalkaal Foundation iyo maamulka dugsiga Umulqura ayaana lagu qabtay deegaanka Tareedisho ee duleedka magaalada Muqdisho. munaasabada intii ay socotay ayaa waxa ay ku soo bandhigeen ardada qaybta ka dugsiga Umulqura ee duleedka Muqdisho riwaayad ka tarjumaysa waxqabadka Kalkaal Foundation. ما شاء الله عنيق waxa uu qabaa cudurka la yiraahdo cagaarshow marka oo hadda ka hortag ahaan ma sameyn karno oo inaan ka talaalna ay ahayd maadaama oo hore loogu soo talaali waayay hadda daaweyn ayaa siinaa daawooyinkaasi oo adina oo joogta oo control oo si joogta u isticmaalo way balan ana control si la daawooyin okay marka way daawooyinka farmashi oo si mara marka waa ka hore ku marana ma daawooyinka aywa Kalkaal wiilki waa geele hore ka soo jaar laba lug ما شاء الله والله waxa ku tilmaama qaan koode munaasabadan oo ahayd gundhigeeda mahadcelin maamulka iyo macallimiinta iyo ardada qaybta ka ah Umulqura ay u sameynayeen maamulka iyo dhaqaatiirta Kalkaal Foundation ayaa madasha waxa ka hadlay Suhayb Ahmed Aadan oo ah maamulaha dugsiga Umulqura iyo maamul wadeenada Kalkaal Hospital inay wadanka wax badan oo dhibaato iyo cabashooyin dhanka caafimaadka ay yaraan lahaayeen marka waxaanu leenahay isbitaalada kale oo wadanka ka howlgala gaar ahaan magaalada Muqdisho waa inay ku daysadaan waxna ka bartaan ihsaanka iyo tabarucaadka ay bixiyeen Kalkaal Hospital. Khadija Maxamuud Maxamed oo ah madaxa mu'asasada Umulqura oo dhankeeda madasha ka hadashay ayaa ugu mahadcelisay baaritaanada ay u sameeyeen caruurta qaybta ka dugsiga Umulqura dhaqaatiirtii ka socotay Kalkaal Foundation. Dr. Cabduqaadir Faarax Xaaji Dr. Xaaji oo ah gudoomiyaha Kalkaal Foundation ana madaxa qaybta caafimaadka ee isbitaalka Kalkaal ayaa dhankiisa tilmaamay in howlwadeenada ka howlgala Kalkaal Foundation iyo Kalkaal Hospital xarumihiisa kala duwan adeegyo caafimaad oo tabarucaad ah ay u fidiyaan dadkooda danta yar. Kalkaal Hospital Foundation maanta waxa u ah inuu fuliyo talaal gaarayo 277 cunug oo awood u badan inuu macadka Umulqura ka fuliyo mustaqbalkan dhammaystiro qaybaha kale oo talaal oo harayna haddii ay noqotana oo keeni doono Umulqura. Kalkaal Hospital Foundation wuxuu maanta ballan qaadayaa inuu fulin doono dhammaan tabarucaadka ay u baahdaan xag caafimaad dhammaan ilmaha dhigta Umulqura gaar ahaan agoonta wixii tabarucaad ah oo ah caafimaadkooda dhammaystiran. Dr. Ayub Ali Daahir oo ah madaxa gargaarka isbitaalka Kalkaal ayaa dhankiisa tilmaamay in howlahan baaritaanada ah ay u sameeyeen caruurta wax ka barata iskuulka Umulqura ay qayb ka tahay
hawlo kala duwan oo tabarucaad ah oo u fidiyaan dadka danta yar ee ku nool magaalada Muqdisho iyo gobolada ku teedsan. kama ahayn loo mahadcelin sababtoo waxaan qabanay shaqo laga rabay inaan qabanno laakiin akhlaaqda iyo macdanka oo wanaagsan maamulka umulqura awgeed ayay noo mahadceliyeen sababtoo qofka markuu shaqo laga rabay inuu qabto uu qabto inta badan looma mahadceliyo waxaana taasoo filaysay Maxamed Cabduqaadir Gaadaco oo kamid ah howlwadeenada isbitaalka Kalkaal iyo mas'uuliyiinta Kalkaal Foundation ayaa tilmaamay inay ka go'an tahay inay wax u qabtaan dadka danta yar ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya. Kalkaal Foundation ee soo gabagabayso ololihii talaalka ayadoo aad iyo aad loo talaalayay waxa weeye maaragtay aqoontii ku jirtay umulqura dabcan waxaan rajaynayaa Kalkaal Foundation waxyaalo badan oo ay ka shaqeynayso waxa kamid ah ololaha sidoo kale ololaha faruuranka waxyaalo badan oo ay qabanayso waxa kamid ah daweynta dadka taagta daran dabcan waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaan sii wadi doono. Daahir Siyaad Ahmed ayaa sheegay in dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalka Kalkaal iyo Kalkaal Foundation ay wax u barteen dadkooda isla markaana aanay ka daalaynin inay u adeegaan dadka danta yar ee ku nool gobolka Banaadir iyo gobolada ku teedsan. umulqura mu'assasada la yiraahdo oo ah mu'assaso ballaaran oo ay joogaan caruur gaaraysa ilaa 270 ilaa dhaqaatiir iyo shaqaale iyo maamul intaba oo gaarayaan ugu yaraan 300 oo qofood waxaan cadeynaynaa maanta inaan wax badan aan soo marnay 5 bilood ka hor ayaan meeshan ku nimid annagoo raadinayna aqoontaas darteed u socona ilaahay wuxuu nagu guuleeyay subxaanahu wa ta'aala inaan daaweyno caruur badan oo masaakiin ah oo waxba haysan oo isbitaalka uu daaweeyo foundation ahaan uu daaweeyo. Si kastaba ha ahaatee Kalkaal Foundation ayaa baaritaano lacag la'aan ah waxay u sameeyaan dhaqaatiirta ka howlgasha qaar ka mid ah dadka danta yar ee ku tabaalaysan gudaha gobolka Banaadir iyo gobolada ku teedsan.